Bushaaro dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed waxaan ugu bushaaraynayaa inaan idin hayno daawo gebi ahaanba tirtiraysa dad badanna Ilaahay kaga caafiyay xanuunada macaanka, dhiigkarka, babaasiirta, kolestaroolka, infekshanka, xasaasiyadda, gaastariga, kansarka, dhagxaanta kelyaha iyo beerka iyo weliba kuwa kale oo aan halkan kusoo koobi karin kuwaasoo laga sameeyay khudaarta iyo cuntooyinka daawada ah. Sidoo kale waxaanu idin haynaa gariimadii oo iyaguna dabiici ah. Daawooyinka waxaa ka mid ah daawada loo adeegsado dadka xasuustooda hoos u dhacday isla markaasina waxba xifdii karin. daawadan waxay ka samaysan tahay kofee dabiici ah waxaana ay kor u qaadaa caafimaadka, xasuusta iyo weliba xifdiga. Kuwa miisaanka lagu dhimo, kuwa caloosha lagu jaro, kuwa midmada wejiga baabi'iya iyo kuwa kale oo aan halkan kusoo koobi karin. Haddii xaaladaadu ay xun tahay ama aad u baahan tahay shaybaadh, waxaa ku jooga doctor caafimaad. Sidoo kale waxaanu ku haynaa dadkii Ilaahay xanuunadaasi kaga caafiyay oo ka warramaya marxaladii ay soo mareen iyo sidii dalka gudihiisa waxba looga qaban kari waayay, kuwaasoo qaar ka mid ay qabeen xanuunada aan daawada lahayn sida kansarka. Haddii aad u baahan tahay muuqaaladaas iyo weliba faahfaahin dheeraad ah, fadlan nagala soo xiriir lambarka shaashada ku qoran. Sidoo kale waxaan ku hayaa fursad shaqo oo aad kaga shaqaysan karto meel kasta oo dunida ka joogto. Shaqadaasina waxaad qabsan kartaa xilligii aad doonto ama firaaqaad haysato. Waana shaqo run ahaantii aan odhan karo waa shaqooyinka ugu fudud uguna lacagta badan. Haddii aad u baahan tahay iyadana waxaad nagala soo xiriiri kartaa lambarka shaashada ku qoran. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي وادي السلام صاحبي الملك صندوق داونيسان كسر دو برنامج كان عصبة الحرارة قيبتي صلوات. حتى بس يداوم مقال كسيان وكل في الدكيسو فضلا مقال كليك صار بيج كفلو جري هدي أتايتني في يوتيوبنا سبسكرايب تيا لغة تمامي. أنت عدي أتسوي حتى قفنا مقاليا. سودو صاحب. عندو صاحب. مقعد صاحب. خضر وهالكم حكوا تراشن سؤالات متكمل الله في حساء ودخلي ساء كبعد السؤال شجواب تيزنو ورنا كاك. su-aashu yaro dheertahay waxa weeyaan waxaad sheegtaa magac marka hore waa magac nin marka hal xaraf laga jaro waa magac gabadh ay leedahay marka hal xaraf laga sii jaro waa waxay dadku jecel yihiin. wallahi su-aasha jawaabteeda ma hayo aad iyo aad baad mahadsantahay saaxiib. soo dhow walaal. waan dhawahay walaal. magacaaga? Mustafa. Mustafa halkan waxaa ku jira 4 su'aalood. 4 su'aalood mid kamid ah aad la baxaysaa ka bacdi waad nooga jawaabi doontaa insha Allah. Haddii Ilaahay ii fudaydiyo. waxa weeyaan waa su'aal diiniya. farxalka weysada marka yani weysada intaan la bilaabin ee la farxalanayo ma waajib ah mise waa sunne? waa sunne. aad iyo aad baad mahadsantahay waad ka jawaabtay su'aasha walaal. soo dhow saaxiib. Ndhow saaxiib. magaca? Farxaan oo halkan waxa ku jira 3 su'aalood. 3 su'aalood warqaday ku kala qoran warqado waa kuwa duuduwan waad la baxaysaa ka bacdi jawaabta dhankaaga. waxa weeyaan waxaad sheegtaa walaalka walaashii oo aan adiga walaasha ahayn. walaashii walaalka walaashii walaalka waa walaashii adigana walaasha maaha. su'aasha ma garno. soo dhow walaal. waan dhawahay walaal. magacaaga? maxamed deeq cali taahir. maxamed halkan waxaa ku jira 2 su'aalood. 2 su'aalood mid kamid ah la bax insha Allah ta'ala jawaabtana waa dhankaaga. su-aashu sii jeeda ku maamulaya. sheeg wax ka sii jeeda oo haddana ku maamulaya. su-aasha ma garanaysaa. ma garanaysa waay saaxiib aad iyo aad baad mahadsantahay. haddii aan kuu faa'iideeyo waxa weeyaan imaamka markuu ku tukanayo Allahu akbar waxa sii jeeda maaha haddana ku maamulaya. aad baad mahadsantahay saaxiib. waxaan ku hayaa fursad shaqo oo aad kaga shaqaysan karto meel kasta oo dunida ka joogto. shaqadaasina waxaad qabsan kartaa xilligii aad doonto ama firaaqaad haysato. waana shaqo run ahaantii aan odhan karo waa shaqooyinka ugu fudud uguna lacagta badan. haddii aad u baahan tahay iyadana waxaad nagala soo xiriiri kartaa lambarka shaashada ku qoran.